naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan ayaa munaasabado ballaaran ku soo bandhigay buugga qubanaha qisooyinka oo qoray Bilo Daahir iyo waliba suugaanta Halabuur Cabdishakuur Siciid Cabdi oo ay walaalihiin fanaanka Biike. ugu horeyntii waxa munaasabadahaasi ka hadlay isla markaana u mahad celiyay naadiga akhriska iyo qoraalka halkaraan qoraaga Bilo Daahir iyo waliba Cabdishakuur Siciid Cabdi. idin hibeenaya mahadaan duugoobin inaad qayb ka noqotaan wajiga afraad dhiganaha qubanaha qisooyinka. buugaas qubanaha qisooyinka dhammaantiis wuxuu koobsanayaa aayad quraan ah oo ah faqsus alqasasa la'allahum yatafakkaruun. nabi maxamedow way qiso calayhi salaatu wasalaam qisooyinka laga yaabaa inay raacraacaan oo tadabburaan oo ay wax ku qaataan. buugaas muddo sanad ah 2016 sanadkii tagay baan wadnay. wiil bulaa oo ku barbaaray nabad iyo barwaaqiyan rayn talaxumo boqolo intuu biliya dheeraad weedo inta ku sii jiray beegsaday Talyaano asaagii baryayo Boolaan ka tuugsada maxaa waalid bahoriyo xiiso uu ku beermo barbaartiisu u dhalay kala baadiyoobeen waagii baryaayaba boqolaal la waayiyo qaar mid ku baariyo haadu bildan faratiyo oo heebelan baliyo hoog baa maxaa la sheegaa bulshada taariibtiyo kawaanto badgo boqorkiina ooma barwaaqayn dhulkeeno waynu wada baraaraya beledkiina aamina. munaasabadahan ayaa waxa sidoo kale ka hadlay mas'uuliyiinta naadiga halkaraan halabuuro aqoon-yahano iyo marti sharaf kale waxayna bogaadiyeen qoraaga iyo waliba halabuurka Cabdishakuur Siciid Cabdi ee soo bandhigay suugaantiisa. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha halkaraan iyo xubnaha kaleba. horta anigu runtii suugaan aan leeyahay caawa halkan ka oran maayo sababtoo ah waxaynu caawa u martinahay abwaankeena iyo halabuurkeena Cabdishakuur Siciid Cabdi in yaroo tacliiq baan doonayna inaan ka bixiyo suugaantiisa. suugaanta diiniga baan aad u jecelahay wuxuu ku jirtay suugaantiisa diiniga ahayd maasa anbad la yiraahdo uu akhriyay beedaan ka qabtay. ku faraxsanahay mar kale isugu soo noqono munaasabad ugu weyn aynu ku maamuusayno ku dhageysanayno waxna kaga faa'iideysanayno suugaanta halabuur dhalinyaro Cabdishakuur Siciid Cabdi. gabagabadii munaasabadaasina waxa halkaasi riwaayado ka turjumaya suugaanta iyo waliba qoraalka ku soo bandhigay kooxda Ayatiin Drama. Cabdirasaaq Cabdilaahi Sheekh Hadan Cabdirasaaq Koronto telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco xarunta gobolka